Master Tom maxaad ka tiri Soomaalida weli ku nool ama jecel qabyaalada ama qabiilka? qabyaalada waa qurun qaran inay dumiso mooyee faa'iido kale ma lahan. qof qalbi qiiqay leh oo qulubtiisa xun tahay ayaa weli jecel qabyaalada iyo waxyaalaha oo qurunka ah. marka Soomaalida waxaan kula talin lahaa qabyaalada iyo qabiilka ka soo tagaan oo qarankooda ha dhistaan. Master Tom dhanka kale maxaa ka tiri heesa shacbaxday ee Farxiyo Fiska ku karbaashtay ragga ama nimanka? Farxiyo Fiska waa saxan tahay maxaa yeelay heestii ay qaaday 8 nin ayaa u soo jawaabtay. waxaan Farxiyo Fiska ka dalbanayaa hees kale oo karbaash ah in ay soo saarto si ay 30 nin ugu soo jawaabaan. Mudane Tom maxaad ka tiri Cabdigood oo inta badan heesaha ku dhiga kaas oo yeeshay mucaarad iyo taageeraba? Cabdigood haddaan arrintiisa ka hadla, Cabdigood marna wuu saxsan yahay marna waa qaldan yahay. maxaa yeelay Cabdigood heesahan iyo barnaamijyadan iyo waxaan uu la yimid asaga ayaa maskaxdiisa ka soo aliftay. hadday rabaan dad ha ku caawiyaan, laakiin dadka daba dhiganayo waxay qabtaan may waayeen. ninkan ma ku fakarayaan miyaa barnaamijkan asaa keensaday, asaa rab inuu kusoo caanbaxo, asaa wax ka raadinaya, asaa qarash ku helaya, asaa dadka ku dhigaya, ma garatay? marka waxaan dhihi lahaa lagu mashquulin inuu saxsan yahay mararka qaar marna uu qaldan yahay. dadka dhan way ogyihiin, laakiin aniga waxaa isleeyahay in lagu mashquula ma aan. qaadka haddii dalka Ingiriiska la furo ama dib u yimaado qaadkii, Cabdigoodna waa la weynaa, ma garata? qaadkiisu iyo meelihiisu iska aadaa, laakiin inta kale uu shaqaysanaya dadkan ku mashquula. Cabdigood faraha ka qaada aan dhihi lahaa. Cabdigood meelo badan uu ku saxsan yahay waxna wuu ku qaldan yahay. marka intaas ay idiin sheegaya Soomaali weyn. Master Tom su'aasha kale oo aan ku weydiinayo waxay tahay aaladda internetka ama Facebooka qaybta Soomaalidu ku kulanto dhankee u jeceshahay ama aad ka qaraabataa mudane? aniga wallahi haddaan runta kuu sheego, Facebooka ama aaladda internetka ama meelaha bulshada Soomaalida u badan yihiin waxaan ka qaraabtaa TV laanta hawada. maxaa yeelay TV laanta hawada waa beejka ugu caansan Soomaalida. waxaan kala hadday soo baxbaxeen, marka TV-gaas waxyaalo macquul ah la soo geliyaa. aniga habeenkii shaacan soo shubtaa, waa ka qaraabtaa, halkaas dad badan aan ku bartay, ma garatay? meel kale ma aqaan, laakiin TV laanta hawada qof Soomaaliya oo aqoon ma jiro. intaasaan kuu sheegaa. qofku waa laga yaabaa inuu asaga meel kale galgalo, laakiin aniga meel muhiim ah haddaan rabo inaan galo ama wax cusub soo arko ama waxyaalo qosol oo rabo inaan markaas iskaga farfarxo, TV laanta hawada la galaa, ma garat? Mudane Tom waxaan ku weydiinaynaa dhacdooyinka Soomaaliya iyo website-yada xagee akhrisataa, xagee u badan tahay, xagee kala socota akhbaaraadka dalka Soomaaliya ka dhaca? jawaabtu waa iska cadda. aniga allbranded.com akhristaa. Soomaali badan akhrisato. website macquula waaye oo haddana caan ah, ma garatay? waryaal badan uu leeyahay adduunka daafiis uu kala jooga, marka asaga lee ku xiranaan. wax kaloo been iyo maraba dadkan kale waxay rabaa isku qorayaan, laakiin allbranded.com waa la wada yaqaana, ma garat? Master Tom waa su'aashii ugu dambeysay. kooxaha iyo fanaaniinta iyo heesaha Soomaalida yaa ugu jeceshahay? ma naga warrami kartaa dhankaas? haddaan dhankaas kaga hadlo oo heesaha Soomaaliga iyo fanaaniin badan iyo wax waa iska jecelahay, laakiin anigu kuwa macquul oo aad aan u taageero aan jecelahay waa kooxda walaalaha CC Somban. waa dhalinyaro badan oo Soomaali iyo cadaan iskugu jira. marka wallahi aniga waxaan ku jeclaaday oo runta laga hadlo, waxaan ku jeclaaday calanka Soomaaliya jecel yihiin, nabadda jecel yihiin, wax kasta soo dhaweeyaan horumarka. marka dhalinyaro macquula waay, ma garat? dhalinyartaas waa taageeraa, heesooda iyo waxooda waa daawadaa, nabadda ayay ka hadlaan. qof kasta oo nabad jecelna waa in la jeclaada. nin dagaal iyo balaayo wadan ani ma jecel, ma garat? intaas la soco.